السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيات يوتيوب عن إذن سلامي عشان كلمات عكو سابسين سيدات فرنس at يوتيوب وقدر صلحت سؤال شاس أسوي ديي إن قيارتك كميدا إن يوتيوب كا يقصو قري إن كومانديجا إن سيدا لو قدر صدا يوتيوب كومانديجا أو كميدا مستر قرحية بوي oo igu soo qoray intaan wuxuu yiri ma sha Allah ogaas waa Axmed Shafiic waa mahadsan tahay laakiin walaal waxaan rabaa sida YouTube qof loogu darsado marka walaal way fududahay oo wax aad u dhib badan ma ahan marka waxaan sameeynaa channelka oo adiga aragtid adkan marka waa channelki kale aniga aan ugu talagalay inaan tusaale ahaan kaaga tuso marka kan waa Axmed Shafiic marka kana fiirina marka qofka channelkiisa rabtid inaad friends ka dhigatid ayaad galaysaa marka ku dhufatid oo gashid waxa laga baahan yahay inaad channelkiisa booqatid ma ahan waa inaad cashirka daawato ma waa inaad marka hore channelkiisa booqatid oo ku dhufatid magaca channelka kadib marka magaca channelka ku dhufatid waxa laga baahan yahay inaad sameysid markii aad channelka furtid oo sidan kugu soo baxo hoos ayaa u soo dagaysaa oo meeshan waxaad arkaysaa ku qoran tahay hoos marka usoo degto dabcan waxyar ama ka duceliyo akana meesha ku qoran tahay add as friends meeshaas ayaa ku dhufanaysaa qofka markuu meeshaas ku dhufto haddii oo mataqaana YouTube kaaga furan yahay isla markii wuxuu ku soo diray message oo wuxuu kugu soo diray MSN kaaga ku jirto sida dabcan YouTube kana waxaan ku jira MSN kiisa ayaan ku jira marka kana MSN uu furan yahay oo waxa oo macnaha akhbaartii degdeg kale uu soo galaa marka aan ku dhufano add friends marka wuxuu ku qoriyo invitation has been selected marka received message marka waa ii soo dhacay message-kii inuu qofkaas YouTube-kayga macnaha friends iyo wuxuu iga dalbana waxay tahaba waa inaan fiirsha MSN-ka MSN markaan fiirino oo aan furno waa kana MSN-kii one message ayaa ii taalo marka aan refresh dhaho marka dabcan fiiri YouTube service-ka waxay ii soo direen inuu ninkay la yiraahdo Axmed Shafiic has invited you to become friends inuu saaxiibada ka mid noqdo marka inta waa lagu tusaa akhbaarta laakiin waxa laga baahan yahay YouTube kaaga inaad tagtid oo YouTube kaaga markaad tagtid ka tagtid magaca ku dhufatid kadibna aad tagtid inbox marka dabcan sidan ayuu kugu soo baxayaa inbox-ka marka waxa lagu leeyahay hal message ayaa ku taalo oo ka socoto friends infinities macnaha ku soo diray haddii kale taa comment-ina muxuu kugu soo qoraa comment inta lagu soo qoro kuliya oo inta uu message ku dhiga marka inbox-ka fur kadib marka furtid waxa ku soo baxaya qofka rabo inuu friends kula noqdo haddii comment tahayna waa inuu kugu noqdo kadib meeshan waxa ku dhufanaysaa meeshaas marka ku dhufatidba wuxuu ku soo saaraa in approve or ignore had ka tag ama macnaha haddaad u baahneen iska dhaaftid haddaad u baahan taana improve haddaadid haddaad aadna blog iga xirin haddaad waa saddex ismail marka aan dhahno improve mujido you are now friends macnaha asina uu ugu jira friends marka sidii ku ogaanaynaa inuu qofkan friends ugu jiro dabcan waxaad tegaysaa meeshaan ku qoran tahay address book ayaa tegaysaa address book markaa ku dhufatid waxaad ka tegaysaa meesha ku qoran tahay friends all contacts waxay kugu jiro waa intana friends waaye marka waa kana kugu jiraa qofkan Axmed Shafiic waa friends-kaaga marka aan fiirino inbox-ka kale haddii oo qofkan u dirto adigana oo ku qaabili waayo macnaha sababtoo ah adiga friends la noqotay dabcan marka aan tagno inbox-kiisana aan tagno aan ka tagno book address book kadib waa kana friendly suug yahay Axmed Shafiic waa kana tuugan waa kana isla markii friendly-kaaga waa sidaas oo kaliya
waxa kale kaagama baahno micnaha xitaa subscribe wuu sameeyey haddaartid inaad friendiga iska tirtid intaa yaa remove ka dhigi kartaa oo haddaartid check intaas hartaa delete dhigi kartaa haddaartid blog ayaa dhigi kartaa waa intaasoo kaliya marka wax dhib badan ma ahan way fududahay qeyr ayaa idin rajeyna insha allah biidnillahi kariim su-aashana oo isoo weydiiyey qarxi boy insha allah inaan ugu jawaab rajeynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu